بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan oga baaqayaa dawladda sharafta leh iyo mas'uuliyiinta shacabka mas'uulka ka ah dadka iyo dalkaba ayaga ka mas'uul ah oo kamid yahay gudoomiyaha degmada Wadajir oo kamid yahay gudoomiyaha gobolka oo kamid yahay ra'iisul wasaaraha oo kamid yahay madaxweynaha annagu dad shacab ahaanahay dadka iyagu mas'uulka ka ahaayeen baan nahay waan dhacanahay dad baana dhacay hantideena boobay maxay ahayd dhula annaga leenahay oo 87 bishii 12 dukumeenti aan ku yeelnay ku milkinay ayaa nagala dhacayaa waxaan cugeysiinaynaa fariinteenaas haday soo gaarto dawladda sharafta leh inay wax nooga qabtaan naga saacidaan hantideena ay nooga soo dhiciyaan insha Allah waxaan rajaynaynaa fariinteenaas markay idin soo gaarto mas'uuliyiinta dalka adinka ah dadkana adinka mas'uulka ah dalkana adinka mas'uulka ah xilliga lees dhacayeen in laga soo gudbay adinka noo sheegteen biidnillaahi kariim waxaan idin ka rajaynaynaa inaad xoolaheenaas aad noo dhicisaan dad masaakiin ah shacab ah agoon iyo maras isku jirta ayaan nahay wabillahi insha Allah wax dibadda jira iyo wax gudaha jiraba dhulkaasna wuxuu ku yaalaa degmada Wadajir Brandir Jazeera State meesha ay u bixiyeen niman ganacsato ah ayaa ku heshiiyay nimankii dhulka deganaay oo goofleyda ahay oo mar hore loo sharciyay ayay dhaheen wixii hore waxba kama jiraan hadda idin sharciyeynayna lacag ay la hoos ordayaan waxaan rabnaa annaga dukumeentigeeni waa jira iyo ma jiro dawladdan ka rabnaa ayadan ka warsugaynaa biidnillaahi kariim الرحمن الرحيم أنك دوكومنتي عشان واقواسا ودوكومنتي محمد سياد أو نولا جوي جوريها حمر وحاله جولية هالدوكومنتي يا لجولية لول كاسقاف وحوكبة حي مركز دوكومنتي كاسنا لسي وحنقعد سينا دولة مدحوينها رئيس الوزراء وحي الشرع وحاله عدالة أيا وحلوجو يا شالوجو خالد دمية دوكومنتي كاس وحمله دوكومنتي ورقة عدا وحله نمن جنع ستا وحال دوكومنتي وقوستو ورقة عد سارتين نمن وقتي قوف جورجان كبح أقول كان لعبير كبعدي يكون نقديني وحي كدجان ورقة عد قوستين دوكومنتي جاينا وحبك مجران وايدهن waxaan dawladda ka codsanaynaa dokumentiga Maxamed Siyaad wax lagu mala hadii dhaho goof ninka kasta badhahay guriyaha xamar ku yaala kulli goof ay wada ahaayeen haddaan tan wax ku yeelo weyna guriyaha xamar ku yaalo waa weyna waa la jibiha sida waxaan ka codsanaynaa dawladda inay xaqayna noo soo dhiciso assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halka ee sharafta leh dadana dhuuhaaya oo ganacsato u badan dhulka makiinooyinka la geliyay oo u dhaxeeya Baqdaad iyo xerada Ugandayska hadda ay degan yihiin Burundiga oo degan yahay u dhaxeeya warshada nacnaca iyo Baqdaad u dhaxeeya oo makiinooyinka la gelshay oo la diyaarshay oo ceelalka laga qoday dhulkaas waxa iska leh dad agooma iyo dad hadda waaga nool waxa la cabiray 1987 la cabiray goofnimo waqtigaas uu ka baxay dada iska leh inaan lagu kidsoomin oo maaragtay dawladuna ay nooga soo dhiciso sidii madaxweynuhu ugu horeeyay ra'iisul wasaaruhu gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada kulli dawladda maxkamadaha sare waxaan u sheegaynaa dhulkaas wadada iskale masaakiina ununka iskale dadka hadda inta meediyaha laga arkayo iyo in kala maqan dalka dibadda jiraan iskale wuxuu la cabiray waqtigaas la cabiray xilligiisiyad baraa la cabiray hadda naqshado kale oo been abuuraha la saaray ganacsato iyo ayaa ku heshiiyeen iyo dad dulmi ku heshiiyay ayaa ku heshiiya dawladda waxaan ka codsanaynaa inay marka waa faraxna hadii la doorto caawadi farmaajo la doortay waa la dabaaldigay waa faraxnay welina waa taageersanahay sidii aan marka adigu ugu faraxsanahay waxaan si rabnaa cadaaladda xoogaa madow inuu ku jiraad u malaysaa inuu soo dhiciyo xaqayna inuu kaga soo dhiciyo dadkaanana ka qabto dokumenti aan leenahay oo siyaad baraa oo waqtigaasa wabillahi tawfiiq waxaan dhex taaganahay dhul ku yaala degmada Wadajir gaar ahaan meesha loo bixiyay state Jazeera ay u bixiyeen laakiin state tuugo ah oo maaragtaa ahayn dhul sax ah oo loogu talagalay in dadka dibadaha jooga lagu dhaco looguna talagalay in lacag looga qaato dad aan waxba ogeyn oo dibadaha jooga iyadoo la leeyahay dhulkaasaan haynaa waa dhisaynaa oo waa dhul dan guuda aan ahayn oo ah dadku ay leeyihiin oo anagu iska leenahay oo muxuu ahay dad ay leeyihiin agooma oo ay leeyihiin dad waayeela oo ay leeyihiin dad hadda kaakuma ku jira oo maaragta dad displaced oo maaragta meel aan haysan oo magaalada ku barakacsan oo dibadda ku barakacsan oo meel walba ku barakacsan sida awgeed
dhulkaas meesha ku yaalla ee la bixiyey 1987 bishii 12aad 27keedii la bixiyey uu soo baxay sabroloogiisii oo uu soo baxay dukumentigiisii ee ka baxay goof ahaan ka baxay oo uu ka baxay wax walba oo dawladu ahaa nidaamka dawliga ahaa soo maray ayaa la yiri siyaad bare warqadihiisa ma socdaan nidaam dawliya u dhaxlaa sidaa awgeed nidaamkii dawliga ahaa oo dawladii Soomaaliyeed ee qaranka aynu wada jeclayn ee naga burburtay haddana dawladan kale ayay noo timiday waxaan rajaynaynaa in maaragta ilaahay idinkiisa madaxweynaha qaranka ra'iisul wasaaraha qaranka gudoomiyaha baarlamaanka qaranka gobolka degmada dhammaan inay ogaadaan cadaalad darrada rafaadka dadka danyarta oo la boobayo inay hoos noo eegaan dadkaasna naga qabtaan ilaahay baa qaba kare iyaguna dadaalaan naga qabtaan wabillahi tawfiiq warahmatullaahi wabarakaatuh halkan waxaa ka salaamayaa islaamka oo dhan gaar ahaan Soomaalida gaar ahaan dawladda federaalka ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha gobolka Banaadir gudoomiyaha degmada Wadajir waxa gudoomiyaha u tihiin iyo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha u tihiin waa shacabka Soomaaliyeed anagana kamid ah waxa la rabaa niman waxa jiro alla ka cabsaynin alla ka cabsi dhaafeen oo ku faanayo lacagta nin hadoo lacag hayna lacagta biri xisaaba jirto meesha ku bixiyay meesha ka keenay lacagtaas inuu lagu bixiyo dhulkeena oo lacagna loo sheegto meel walbo dulmi waaye dawladdu waxa ka codsanaa inuu dadkaas na dulmihayo naga qabtaan ilaahay dartiisna oo qabtaan anagoo shacbi ahaanna naga qabtaan shacbiga dadkii u cabaadayeen u dacwooyeen waa dadka dawladda oo madaxdeena waxa ka codsanaa ganacsatada inuu lacagta farqo dhulkeen ku farqdo oo labeelaysato hadii la hadalna ninkii nin xoog weyn xarma dhib inuu dhahaan dhibkeeda leedahay waxa uu sheegnay dawladda federaalka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha baaqayna minay maqlaan nooga jawaabeen alxamdulillah minuu nooga jawaabin biri tan adduun waa aakhira la tagaa ilaahay oo marqaadka ah inuu la xisaabtami doono aakhiran u haysano igoo dawladda oo nama taleen oo noo dhaarteen ilaahay oo marqaadna ah inuu la xisaabtami doono maalinta aakhiro iyo qiyaamada hadii tagno ilaahay nasamageeyo maalintaasna inuu tan ku xisaabtami doono inuu ogaadaan rabnaa haddii kale wax xataa noo qabtaa ilaahay ka cabsadaan tan adduunyo waay biri aakhira ka dambeeyso war wax hadii walba lahaaw wax walba lahaaw ninka xoog weyn hada lacagtan uu faanayo hal karfana ka qaaday maalintaasna waa xisaabtami doonaa haddana intii naftan ugu jirto ka hirimayno dawlad walba baaqa u direena maalintii baaqaas laga diidane ilaahay dartiis ilaahay wuu noo jeedaa xoolaad in lagu dhinta xaq waayo xoolaana ku dheemayna wassalaamu calaykum